ciidamada militariga Soomaaliland ayaa saaka togasho ku dilay marxuum Allah u naxariiste Cabdi Aadan Jaamac Qalalaab oo kamid ah darawalada gaadiidka loo yaqaano waraadada oo iska kala goosha gobolada bariga iyo sidoo kale gobolka Sool. Dilkan ayaa saaka ka dhacay kantaroolka bari ee magaalada Laascaanood. waxaana ga warbixiyay dilkaasi barasaab ku xigeenka gobolka Sool TV-ga caalamiga ee Somali News. barasaabka ayaa sidoo kale sheegay inay gacanta lagu hayo 7 askari oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliland kuwaasi oo dilka geystay sheegana in sharciga la horgeyn doono. mahadsantiin wariyaashiina salaamaya dilku Allahu naxariisto marxuumku waa dhintay ilaahayna wuxuu banaajina fardoosan oo bareena dilkaas wuxuu dhacay si qahtalan u dhacay matalaana isagoo safarkiisa ku jira ciidanka qaranka isna meesha marayaan runtii rasaas bay maqleen adu qadar dhacday bahayd runtii wax ma ahayn ku talagalana ma ahayn Allah uu naxariisto mar labaad marxuumka waan la hayaa ragii ciidanka waa la hayaa tirada inta ka saacaday 7 iyo haayeen bal uu waa la hayaa iyagana runtii sharciga la hormarinaya. maraanu saaka su'aalo ka weydiinay gudoomiye ku xigeenka gobolka Sool dhacdadan saaka dhacday ayaa wuxuu nagu jawaabay sida tan. gudoomiye sida wararku nagu soo gaarayaan waxay noo sheegeen shacabku inay ciidamada militarigu ay baacsan marxuumka kadibna ay gaariga ku horgooyeen gaariga ay wateen maxay ka jira arrinkaasi gudoomiye. waxa weeyaan waxa dhacday si qalad dhacday ahayd waxa isaga taarget lagu yahay oo lagu bartilmaameed ma ahayn ciidanku runtii wadada marayeen amnigan way sugayeen rasaasna meelaha way ka maqleen markii ka dhacday ka maqleen ma ahayn wax bartilmaameed ma ahayn waa xiran yihiin si wanaagsan aad iyo aad wax uga mahadnaqayaa runtii taliya qaybadada ciidamada militariga hawshaas runtii gacan weyn ka geystay oo baaray waa la hayaa runtii ragii falka wala geystay oo dhan. gudoomiye marar badan waxaynu wada ognahay inuu arrinkaasi in badan soo noqnoqdo aan ciidamada dileelkaasi geysta maxkamad lagu saaray magaalada Laascaanood maxaa ka jira arrinkaasi soo sharciga ka adag sharciga ka sare qof kasta sharciga la marin doona hadii la hayd qof aan sharci qaban karin ma jiro military haado ama ha hado wasiir ama ha hado barasaab ama ha hado qof kasta sharciga ma qabanaya qofna lagu tacdiin ma sharciga ma la marinayo ma markii ugu horeysay ciidamada militariga Soomaaliland ee ku sugan jiidaha gobolka Sool ay geystaan dilal noocan oo kala balse ay tahay mid soo noqonaysa muddooyinkii u dambeeyay. waa Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Guray TV-ga caalamiga ee Somali News Laascaanood.